dagaalada qabaa'ilka dadka ugu badan ee la geliya waa dhalinyaro. qadaayadka siyaasiga muranka keena dadka ugu badan leh ee mashaakilka ka dhiga waa dhalinyaro. haddii cagsiga loo kaxeeyo dhalintaasina waxaan odhan karnaa waa dadka ugu badan ee sixi kara ee joojin kara. laakiin waxaa loo baahanya qofka dhalinyaradii inuu fahmo mas-uuliyaddu tijaaha almujtamac, xilka ka saaran inaanu dabeecadaha raacda noqon, inuu garto xilka ka saaran qofka binaadamka aakhiro ilaahay hortii meesha lasoo taago ka dhaqaaqi maayo su-aalo dhowra oo la weydiiyo mooyaane. su-aalaha waxaa ka mid ahaa cimrigiisiiyo wuxuu ku bixiyey, dhalinyaronimadiisiiyo wuxuu ku bixiyey, adduunka iyo meeshuu ka kasbaday iyo meeshuu ku bixiyey, wixii ilaahay baray iyo wuxuu ku sameeyey. mas-uuliyaddu maadaama ay tahay markaasi wax la isweydiinayo qof kastoo muslim oo adduunka jooga, waxaa muhima in mas-uuliyaddaasi xambaaro. waxay culamadu yidhaahdaan adduunka islaamku wuxuu ogolyahay qofku bini aadamka inuu xor noqdo, laakiin alxuriya muqayada bilmas-uuliya bay yidhahdaan. waa xorriyad ku dabran mas-uuliyad ama xilkasnimo. islaamku ma yaqaano العبثية أو العدمية أو عدم المسؤولية. أدوك أنه ما تجونا وحنا مبدئي هذا كان حلكي تسكن عفين عيالي يقول بود يوكا كبير فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل هذا وقفت مسلم هو مسؤولية صار قفت لن يرى على مسؤولية صار dhalinyaradu waa awoodda isbeddelka ka samaysa way yidhahdeen dunida. hadday xagga sharka u wadaan waa dad u toobahaya, hadday dhanka khayrka u xambaaraanna waa dad isbeddel fiican samayn karaya. sida ogeed baa saxaabadii diintan arkaanta u ahayd ee dhistay dhalinyaray ahayd. madiina dee taarikhyahanadu waxay yidhahdaan dagaaladii baa badhiyo odaydiiyo odayo ma deganay, laba nin bay dhasheen wax odayo degana cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul iyo abi caamir alfaasiq baa wax da-a wada sheega maca salaatiintooda. sacd ibnu cubaada iyo sacd ibnu caadi dhowray soo dejineen maca salaatiintooda way kalana dhalinyara wada ahay. saxaabadii muhaajiriinta ahaana raggii hore markii uu nabigu dacwada bilaabay wax 40 gaadhiba nabiga ku jiray calayhi salaatu wasalaam. inta kale waa ka wada yaray abubakar dhowr iyo soddon meelaha, cuthmaan 4 iyo soddon, cabdiraxmaan ibnu cawf 30, cumar ibnu khataab 7 kuwa kale intooda badanna labaatankay ka yaraayeen casharatul mubashiriin oo naga qaybgalay. marka waxaa la hadlayaa tilmaamo dadka wax bedelay dhalinyaro ahaayeen. haddaba mas-uuliyadda aynu imika tilmaamayna inagu aynu u daleeneeleenay dhalinyarada waa laga rabaa. kama warramayna tii naftiisa ahayd mas-uuliyaadka, waxay ka warramayna tijaaha ilmujtamac, bulshada iyo isbeddelkeeda iyo waxqabadkeeda mas-uuliyadda ka saarayna waa bulshadu. marka hore adduunka marka la joogo waa la isku xidhan yahay oo mushkilad kasta oo meel ka dhacda
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أي إلهي قلت الماضي حان الله ينطي الماضي إن الاستجابة لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وضد المؤمنين قالوا إلهي يا رسول الله markay ku yeedhaan wax noloshiina ku jirto diintu nololba ku jirta ilaahay ku tilmaamo. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وأنزلنا إليك نورا مبينا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. diintu waa wax nolosha loo gargaarsado. haddaba laba shay ayaa dhalinyarada laga rabaa. midi waa xumaha inuu soo taago, midina waa samaha inuu ka qayb qaato. maadaama bulshada isku xidhan tahay, ilaahayna leeyahay fitno ka dhowrsada aan inta samayso qura haleelayn. nabiguna calayhi salaatu wasalaam markay saxaabiyadu weydiisay an nahliku wa fiina saalixuun, yaanu halaagsamaynaa iyadoo dad wanaagsan ay ugu jiraan, wuxuu ku tilmaamay nacam idaa kathura alkhabar, hadday cumuum iyo dadka xumi bataan in la halaagsamayo. bulshooyinkana dadka halaaga imaa inay agsariyo noqoto daala ama inay noqoto inta mutarafidiinta ah oo lunsan inta kalena ay qaban weydo. waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa matra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqawlu fadammarnaaha tadmiira. ayuha alaxiba, maadaama waktiguu kooban yahay laba qodob baa tilmaamaya. qodob waa xagga salbiga in laga hortago, wixii bulshada dhib ku keenaya in laga hortago. qodobna waa dhanka iijaabiga ah oo wixii wanaaga in laysu gargaarsado wax laga qabto. diinteenna waxaa taqaana inuu jiro waxa yidhahdaa waajib cayniya iyo waajib kifaaya. waajibaadka cayniga ah inta badan waa waxa qofka isaga ku saabsan. waajibaadka kifaayigiina waa waxa laga rabo bulshadu inay samayso. haddii cid ku filan ee ay u qunto bulshadu ay badbaadayso. nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo tilmaamaya bulshada iyo isku xidhnaanteeda iyo fasaadka cidi samayso inay inta kalena baadaynayso iyo mas-uuliyadda dadka ay saaran tahay inay qaataan, ayuu wuxuu nabigu yidhi mathalu lmudhini fii xuduudi illah waalwaaqici fiiha. xadiidka imaam albukhaari fi kitaabi sharaki fi kitaabi shahaadaat uu ku soo saaray bukhaarigiisa. tirmidina kitaabu lfitan dhammaantood nucmaan ibnu bashiir saxaabiga la yidhaahdo ay ka soo saareen. riwaayaadka qaarkood mathalu qaa'im yidhaahdo, laakiin riwaayaadka saxiix xusaan bay baday. mudhinku waa min alidhaan almuxaabaa fi gayri xaq, yani waxa weeyaa qofka muraa'iga ah ee xuquuqda dayacaya ee aan munkarka inkiraynin. idan qofkaasi ilaahay xuduudiisa aan u aba yeelaynin oo marka lagu dhacayaa wax ka qabanaynin iyo ka ku dhacaya waxay la mid yihiin baa la yidhi sidii duul doon la fuulay oo dabeetana doontii u qori tuurtay oo qolana xagga sare fuushay qolana xagga hoose fuushay oo qoladii xagga hoose saaran markay biyo dooranayaan qofku xagga sare ay sii marayeen oo ay markii dambe yidhaahdeen qoladii sare ka cadartay waxay dhahdeen war qoladan intay duudhibiba lahayd maynu xaggeeda kan ka dabooshan. dabeetana xadiidku wuxuu leeyahay fees bay qaateen oo waxay isku dayeen inay hoosta ka dalooliyaan. markaasuu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam war waa maxay baa lagu yidhi, waxay dhahdeen dee waa nagu dhib baa sheegateen
سيدا دراد الديانة وأوضاها ديما كحقيقة البيئة كدولة وكاكونا وكل تكون داعي كوي كلام مداهي جهنم وحليه حتى يقعد قبطان هو لنوى بالبالية يقنوى بالبالية لوضع قبطان حتى يسيد أيامنا لوضع وقوها الأكسانية حديث كان يبغي يرشدوا تاني حديث محكم الرمي ضد كبير توضعين عنك الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف حديث الشيء يقول الشرع نور الشيء وحلقة المعروف إن لم يتهي دول وشيء بقى مرض لما ورنين دار تاجر وكل تاجر سيدا نور الشيء بدل تاجر السماء سيدا تبى دور وصهر طيبة ليلة لو حتى يلاه يسكر كبي بيها كل الصعدة موجات هي بباتوي كاتر رمضان القلبي وما اللبات أي علماء الإعلان دون بعض الأشياء يدل ولا سارين دون تضغط صفر كابرا من فاجرة يمن باري وأجرة من صالح يمن طالحة هو أهل خير هو أهل حق هو أهل شرية باطلة وابن شيء ست من النوع والبر خير يشرب ونميل أستوصوي ما دولو للوجه حديث اللي ما كان وحاو الشيء بدي دون توصانا غير كاملين يكون فكرتي انت يفاس قاطع إن يلوح الدلوليان وإذا لم نبطي بيها حق حسين كعبة قوة غير تكدهي وحي مقطع نمكني اسم الله هذا هدلو يوحي يفكري إن بينها كثير ليقوى صرنا نبدأ كدايا لكن فكرتنا يوضان أيالة المام يأين يتهي واحد دونتا يدرك وقع إليه عند كستومر كان بلشادة فارس كان سلا بحدشا هو واحد دلولين يوحي نموخها هو الدين تدلولين هي بلشادة الدين تدي يا عقيدة دي إيمان كيدي وحيالي وحي نموخها هو النقل كيدي أخلاق دي ونال كيدي دلولين وحي نموخها هو السياسة دي maamulkeeda daloolinayo waxay noqon karaa kuwo nidaamka iyo idaariga ah ee meesha ka jiray baabi'inaya waxay noqon karaa kuwo deganaanshiyo iyo nabadda daloolinaya waxoo dhami suuraddaa qura-uu xadiidku tilmaamaya bay ku jiraan waa bulsho nolosheeda isku xidhan tahay oo qayb ka mida ay u aragtay doonta inay dalooliso ولو هي سبب صح سنادها قوة كلامك هذا قبلني كان بده وحيالي أما أنا قبلني كان عقيدة الدين وحيالي أما أنا ليسر تاني كان فحش لي وفاحشة لي لقد حمر ولا فافرني أما أنا لجوجني كان نظام كده السياسي جاي يقام يهود دقته وحيالي لما تدعو نفاس كاسي هدي مكان الدلوليو دقوا مسلدقية نوع الضلال كما يكون حرانتي هل الدون تسيني ودقي سلسلة يقول يا رئيسو ضلالكو هدو ويني يعني باب عقيدة يديك هدو يا إمركي بويدقي هدو هو قيادة يمامك يمركي بويدقي أدو سلوكي أخلاقيات هي نطقي وحوية ويا واختطارات إلينا أمرك وحلي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ونوات الصاليان بإلهين أمدكوا يرين لكن وحقروا الصلاة وصفي عن فهمك وأخوان تلب إلهين سبحانه وتعالى وحيقالوا من المضر هذا الحديث كما حلقا فهمية المشكلات الداخلية إن كل بليه المشكلات الخارجية دوت بطصارا
أحسن معروفين الموجودة لكل من دونتو ضبيلا لكل من دونتو روغب لكل من دونتو وحيانا ترى بدنا لكل من دونتو لكن واحد هذا انت ما هو حكسي خطر سن مركز طبع مشكلات الداخلية أربعة بلشدة كأني بدل مشكلات الخارجية. أحد علماء التاريخ الدكتور عماد الدين خليل نيكل هذا وحليه دور بقول سنة دور المسلمين تسيد دمية تاريخ دور الدراسية بدون مركان دراسة أقول بالله رسي وأنا تخصص كيسي دراسة بالله مركان سمية دولي شن يلا باطن قضب أما شن يلا باطن سكين بيسوي المامية شن يلا باطن فيديو ومن ولوا من الوريد إلى الوريد أي جويسي أي تفتبوي برضو كمسلمين تشن يلا باطن كانوا شيء هل سببه كلية خارجي أهو إلى الغزوات أي قال هذا يودي على ذي أفر يلا باطن كلامه والداخل موت المامية فريق الله تك الصبوات كلامه والداخل تمعني هذا هو ينايلها الحبة ورغد الدبد كيما دبل شركة استوحد أعضاء الاستفاع كاتو لكن ورغد هذه الدليل اللي هو قوة بديه هذا كبد الأربع مجتمعات ومكان هذه الترابط اسكو حنا هي السيستم كود هي مامور إلهي يقال هدي ويان وما المرض وحيانا يقرف لي إن الضرر والمصارى وندويسا وهذا نبي نوت النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بل انت مركب حمله بل انت وضعه بدل الدلولية هذا يستحمل وضعه بدل الدلولة داسين أولي كليش وشكرا وضعك أبدا حابة المغضب دلولت فصاغ ضدك أبدا أيومية وردلين دقالنا قضايا ضدك أبدا اللي وردلين قضايا كسياسية مرهقة ضدك أبدا مشاكل كتير وردلين هدي عكس الله كهيا دلين تاسين وحنركب نوادك أبدا سكرا ay joojin kara laakiin waxa loo baahan yahay qofka dhallinyaradii inuu fahmo mas'uuliyadda tijaah al-mujtama xilka ka saaran inuu dabeecadda raacdo noqon inuu garto xilka ka saaran oo joojiyo xumaha dhanka kale haddaan ka eego waa dhanka positive-ka waa inuu وحي إيجابية مسؤولية من إسارتها نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سواء حتى رسالة مسؤولية أيها برشدة إحدى لغف وحطرة ساسدران للباب خديجة بخاري ووركة وكوريني وقلت المامية بركي النبي وحي وقوم بالأمية وعب الصدي خديجة بالرجلين تيسيني سوى حكم لهي inay tilmaamaysay qof bulshada waxtar ku ay yeeshaadana bi'alilin kalla wallah la yukhzika Allah abada ilahi ma ku dhaartay bajri ilahi waligaaliyo ku hoojin maayo sababtu waa maxay innaka la tasilu rahim wa tasqutu al-hadith wa tahmilu al-kalb wa tafsilu al-ma'dum wa taghri al-dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq وحيث المنطقة في إيجابي وفعال ومحترى إنه بشدة الإحداد القوة إنه أها قف قرابة وحريرية وركر منطقة الشهدة ويبال في المجتمع ويهلاكتا قوة عليس رسالية عليس كتدجية قوة وحضاها يسلم معدومك وحترى مرتدي صعطة الصورة نباتنا ضدك الله قيبصده إذا برشدة وحيث الإمام سيد وقف واحترق واحد سأل إليها الحب وحلانا بل يردوا إلى الدرجة مسؤولية برشدة كسارة قواعد الحياة لو حينات المامية
nolosheedu inay isku xidhan tahay haddii dadku mas-uuliyadda u wada dareemana in nolosha dadka la badbaadin karayo waana shayga waajibka kifaa'iga ee diintu ay sheegayso ilaahayna uu ina leeyahay wanaaggana isku gargaarsada xumahana ha isu gargaarsanina watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ou nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadka mu'miniintii inay shucuur mushtaraka dareen mida inay leeyihiin oo ah kuu nabigu lahaa mathalu lmu'miniina fii tawaaddi dadka mu'miniinta tusmahoodu wuxuu yahay ama tusaalahoodu marka laga eego cawaatiftooda iyo isjacaylkooda iyo isku xidhnaantooda iyo isu naxariisadkooda sidii jir qura baa la tilmaamaya jidhku qayb jidhka ka mida uu ihmaaliyaa ma jirto waxaa ilaahay qur-aanka inugu siiyaa amhila tusaalayaal lagaga warramayo dad dowrkoodaasi qaatay oo ah qofku inuu mas-uuliyadda dareemo مثلا في سورة ياسين نكاس إلهي كورمي نكا إلهي وكسفي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ما كان روح الله شيء ما قال هذا يصدح رسول الله داي وصشي من الجديد إلهي وكورمي يا مركا قف برشدي كاملة أدرمين حلسارية وأن أرمين ماشي صدح رسول ما جوجانو حاشية لكن يلا صدح رسول جوجتو أيوه قاطع حلقة إنه السناء ذكر الدبو بكامك إلهي السفيلي إنه صفوه السفيلي وحال الشيء إنه ماشي ورقو كان عيال وشوقين إما قال دعال كده دوقين ورقو منه مالك لكو قاعدين waxaa la sheegay dareenkii uu dareemo mas-uuliyaddaasi inuu socod degdeg ku jiro soo socday rajulun yascaa baa ilaahay leeyahay sacyigu waa almashi sariic la yidhaahda socod degdegi ku jirto inuu waday waxa uu wadayna inuu mas-uuliyad iska rida bay ahayd tolkii inuu ku yidhaahdo war rusushaa raaca sababtu waxay tahay wixii lagu raaci lahaa bay wadaa اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون نكاس مسؤولية سيدو دريمي يضد كيس سيدو وناك ورغبي إلهي وحينا الله ورمي مركي للدليل ومن تيدرين قبي قيل ادخل الجنة جنة قلبا لي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين ألا جعلان لها يميني وحتمنيني تلكي هدي أبيه سيد إلهي سبحانه وتعالى دبقيك أضافي يا خير كان هلي يا وراك يبسد الجدي بما غفر لي ماذا هو موصولية والله ينهدى ومسترية والله ينهدى واستفهامية والله ينهدى انتم معنى يسكن الدول وهجعلان لها بلي تلكي للغادة صلبت إلهي دبقيك أضافي أما تلكين يوغادا سيدا إلهي دبقي يوغافي أما تلكين يوغادا بأي شيء غفر لربي ذنوبي صدح معنى واسكد الدولي ومسؤولية الدريم يجب مجتمع ونحو خير الله جعل هذا حتى يصور من طيب وتمنيني أقول إلى الله إن الله ورميه من تلك وراء اسم الله العين يوكل مؤمن آل فرعون وقرآن وكوامه فرعون ورسول الله الذي من الله صدر الدين ومن إيمانك سقسني وهذا لي يسقول وراء قصص أيها الأحبة وحرم ورك إلى الصوت النبي عليه الصلاة والسلام
وها القرآن يا حديث سنة قلت الماما يا مسؤولية مجتمع قفنا قسعة يقف مكو حلقة سنة دريك سيسيو ما لنبا مسلمين في حديث البخاري جهاد المجري وكان رقا برنوا صومنا رقا برنوا صومنين meel cadeed kurulle waa la joogo gacanta adagu ay gaadhay inay harsadaan dabeetana raggii soomanaa way daateen raggii aan soomanayn ayaa markaa shaqadii oo dhan qabtoo dadkii u khidmeeyey taambugyadii u dhisay xoolihii daaqeeyey biyihii keenay wixii loo baahnaayoo dhan qabtay markaasuu nebigu wuxuu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ذهب المفطرون اليوم بالأجر والنبي كوي أفرا ما تأجر كيف اللي تجيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي رباين وقت المامور عبادة قاصر كأقول سمية يقول فهو ذو الصومي لما تطلب الجهاد بالصعداء يعني ما كان كوي صومنا يدد كل المشقية إن اللي بدأ أجر بدأ يكون شقة عام هذا kuwa shaqada caamkaa qabtay inay ka ajar badan yihiin kuwii iyagu lafahooda u soomanaa markaasuu nabigu wuxuu leeyahay kuwii afuraa ayaa ajarkiiba qaatay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba nabiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam axabu nnaasi ila allah ilaahay dadka yuu jeceliy ama acmaasha kuweebuu ugu jecel yahay wuxuu nabigu yihi ilaahay dadka wuxuu ugu jecel yahay ka dadka ugu anfaca badan leh أعماشنا وحنا رجعلي بالي فرحان أقف مسلم قلبي جلسوا أما عليس هيستيو أكررتو دين أكر دادتيسو قاچا أكررتو ولالك يدنتي ساقو راعو رسول نبي بسوق عليه الصلاة والسلام سوى سنين أحلق يا عبادة قاصر يقف ونفتيسا وصلين أيوه يمروا مسؤولية المجتمع وحقاقه ينبغوا وحي إن المساجد كم بالكو اعتكافه سيكون النبي شريعة مقرنسا والمسجد النبوي مسجد النبوي صلاة المنتو كذا وانسا هل كي صلاة وحاول قدام حي كل صلاة مسجد النبوي مكان صلاة بالكو تكرش ويرى بقول يخطن صلاة صومان شن صلاة صومان ما بقول يخطن هي اعتكاف في وحكتش على النبي بقول عليه الصلاة والسلام إن القف مسلم راعه وأن دنتي سوء فيه يعني برشاد الدنتي غير كشف غيره أي كتش على النبي بقول عليه الصلاة والسلام إن المساجد كافر بيوصل إلى صاصة هي أيها الأحبة نصوص تاني waxay tilmaamaysaa qofku markuu xilka isa saaro bulshada in badan baa maqashay xadiiskii sheegayay ninkii wadada ka duway qodaxda ee jannada ku galay gabadhii eeyga haraada waraabisay ee ilaahay dambigeeda ku dhaafay kuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam assaaci cala alarmalati walmiskiin ninka dumarkaasi laga dhintay ama carmalka noqday iyo masaakiinta qofka u adeega inuu la mid yahay kalmujaahidi fii sabiili illahi nabi qof ilaahay dartii u jihaadkamay ama alqaa'imi lleyli saa'imi nahaar mid habeenkiina taagan maalintiina sooman inuu la mid yahay yani waxaasoo ajara waxaa la isdhinac dhigaya qof maalina sooman habeenna tukaniya baa la isdhinac dhigaya qof ducafadii muslimiinta wax taray ayuha alaxiba cagsigeeda waxa qur-aanku inoo tilmaamaya dadka aan mas-uuliyadda caamkaa qaadin bale ka soo horjeesta iyo dhibtoodu sugayta arayta aladii yukadibu biddiin ilaahay wuxuu leeyahay baka warrankii qiyaamaha beeniyey maxaa kan sifa looga dhigay fadalika aladii yadcu lyatiima walaa yaxudu calaa tacaami lmiskiin waa kan deedefaynaya agoonta riixaya
وأني رجلني مسكين كقوديتيس مسكين كوحسية لا قرن مسكين كقفة وحسية نصوص كلا قرآن كورنطي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نصوص كلا إلى أن تلمام لكن كانوا حالة المامية قف حتى يسوى وحبابها يسمى صوت قلب لكن بيرجلنا عندك وحلصيه ما دام بيرجلنا تسألنا أي القرآن كوحي نقول المامية إن يتهي علامات قفت المؤمن كأنك إن تهديده وأتسكور تكتانا إن كم يتهي مكا علامات كقوة كان القيامة بابا ويسنين إما ذا القرآن كواركتين أبوانت إيا مساكين إيا ذلك عاونتو ومن مسؤوليات المجتمع عكس غيرنا وهو حياب النار وغضب كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين أيها الأحبة معنا الله يرى قفوا نفتي سوق لك الفكرة أردت أن يكون قومنا من محامة الله يمحاك الشقائية ييام السلام يمشي السلام هذا كتب في عبادة بس نعم أنت روايتي لفت هذا يقولها لكن بلشدي ومضى كلام حلمك كاسارا حلك كاسارا مدوينة بحمها تشوشيسو هديك على الدون دوينة لو تدريسا فما هسي أكور تدريسا المسؤولية كاسارا ومن دينه ومن مقامات ومن سياسات ونعيش بلشدة وحيدي بكيري يولا إن تسفتها لكتب بل كلامنا ونكي وسط إسلام وبلشدة ضعفين ساكنتين كوي رباها كوي قاعدين كوي وحتك أوباها كوي كلامنا أوباها إن لعاونك وأفي أدوب اللغة عاونك رأينا إن يتحي وحي أصارك تمام هذا حويانين من ضرر المسؤوليات ديالنا ودليل ما ينقطع الدليل هي مسؤوليات كاس واختيار قوة مرحلة علماء كانوا دينية واختيار